السلام الله عليكم سودواada saaxiibayaal sideed astaamood oo lagu garto qofka ku jecel badana waxaynu aragnaa dadna la leeyahay qofkaas uu ku jecel yahay balse aan noo sheegan karin sideen ku ogaan karnaa hadaba toddobadan calaamadood haddii aad wada aragto kuma damaanad qaadi karo saddex ama laba ka mid ah haddii aad aragto inuu qofkaas ku jecel yahay sababtoo ah waxa laga yaabaa qof walba bil aadam inaad ku aragto laba ama saddex ka mid ah balse haddii aad calaamadahan oo dhan ku aragto qofkaasi aad buu ku danaynayaa xasuusnow haddii aynu barnaamijkeena hore ugu sii socono qodobka koobaad qofka oo aad kuugu soo dhawaada marka aad jeceshahay ama aad xiiseynayso waxaa badanaa jeclaysataa inaad ku dhawaato qofka marka la barbar dhigo inta aad u jirsato ama aad u dhawaato dadka kale sidoo kale waxaad ogaan doontaa in qofku xiiseynayo oo uu istaago masaafo aad kuugu dhow marka loo barbar dhigo dadka kale dabcan aad buu kuugu soo dhawaanaya qodobka labaad qofka oo faraxsanaa marka aad la joogto qofka oo dhoola cadeeya marka uu kula hadlayo xataa iyadoon jirin sabab fiican oo lagu dhoola cadeeyaa waa calaamad kale oo weyn oo cadeynaysa in qofkaasi ku jecel yahay qodobka saddexaad dhoola cadeeyaan hore u qarsoomin dhoola cadeynta qofka hore uma qarsoonto haddii qofka uu ku xiiseynayo dhoola cadeynta beenta ahi hore ayay u qarsoontaa halka dhoola cadeynta dhabta ahi xoogaa ay sii muuqato inta aanay qarsoomin qodobka afraad dabeecadda qofka oo isbedesha qofka oo maalin kugu fiican maalinna ku inkira waa calaamad jacayl oo aad weyn sababta ka dambaysa arintaasi waxay tahay marka hore qofku wuxuu kuula dhaqmayaa si aad u fiican sababtoo ah uu ku jecel yahay laakiin marka uu xaqiiqsado inuu dadaal aad badan sameynayo isagoo ka helin wax jawaab ah waxa uu bilaabaa inuu dib isku qabto qodobka shanaad saaxiibada waa dad fiican qofka oo bilaaba inuu daneeyo saaxiibada aad inuu ugu fiicnaado ama uu soo dhaweeyo waa calaamad kale oo aad u xoogan gaar ahaan haddii uu dadka hore u nici jiray qodobka lixaad qofka oo markasta ka sheekeeya marka uu qofku jecel yahay qofka kale waxa uu badanaa jeelanaadaa inuu ka hadlo ama ka sheekeeyo qofka uu jecel yahay qodobka toddobaad ee u dambeeya barnaamijkeena qofka oo markasta jecel inuu ku arko qofka oo markasta jeclaadaa inuu ku arko isla mar ahaantaana aan ka maarmin aragtidaada waa calaamad weyn oo muujinaysa inuu qofkaasi ku jecel yahay toddobada calaamadood aan soo sheegnay haddii aad ku aragtay saaxiib kuu dhow ama saaxiibad kuu dhow fadlan fursad ayaa ku seegtay ee soo qaba ayaan ku leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan nagaga tegayaa wassalaamu calaykum